mid waxaan siiyey maxamed axmed allah ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto oo dee ninka koobaad anigu waanu aqaan xagga codka ninka koobaad ayuu ahaa waanu aqaanaa waayo maxamed axmed dabeecad buu lahaa mara silmicsan ma qaadi jirin oo wuxuu inaad iriga raalligaahu ma qaadi karee nin aada u hufan buu ahaa codkiisuna wuu wanaagsanaa waxaana isaga soo saaray cabdulaahi qarshi marka waxaan u dhiibay hawdow magacaadu iyo haybsa calankaaga sidee u dhacaysi kamanka haddaynu soo qaadano hawd isaga umaan dhiibin mandeeq baan u dhiibay isaga waxaan u dhiibay dugsiyow daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii labaad ee aanu idinka soo qabanay hobalka weyn maxamuud ismaaciil xudeydi inagoo soo daawanay qaybtii koobaad uu kaga hadlayay taariikh nololeedkiisa iminka iyo haatanna waxaa inoo bilaabmi doona taariikh faneedkiisa sidaa iyo daawasho wanaagsan kamankiiyo xudeydi baynu isla joognaa iminka waayahay berigii hore xudeydi iminka halkan aynu wada joognaa laakiin maskaxdaynu berigii hore joogtaa dib baynu noqonaynaa kamankaa dee waa boqorkii kamankaata la iskuma haysto hadal kama taagna taasi waa siday igu sheegaan may waa siday tahay annaga ku sheegayna waa siday tahay oo ilaa hadda ilaa iyo dadkii kula bilaabay iyo inta badan inaan dhalan iyo inta dadka inta imika joogteen walba dee waa siday qabaan weeyaanay tahay marka maxay ahayd aad kamanka bilowday kabanka waxa ii bilaabay nin reer burca ah oo la odhan jiray cabdi xandulle iyo nin iska dhal ah waxaa ii bilaabay ninka la yidhaahdo cabdi xandulle oo shanle ku magaca dheeraa ubadkiisii halkan ay joogaan oo beri dhaweyd baabay iisoo siyaarteen oo ii yimaadeen iyo xasan cali nahaari oo ahaa iska dhal hooyadiisay ahayd soomaali waliba reer burca aabihina carab buu ahaa waxaa isaga waxbaray seedigiisa walaashiis qabay oo aynu sheekadiisa maalin dhow soo gelayno gurroon jire marka raggaa ay baray durbaankan u sidoo durbaankan u tumi jirado nin studentoo haddana iskuulkaada waxaasu ima dhadhamayna nimankaasun waa aniga ii muuqday niyad aada u weyn baan u hayay ridmadana waan qiinay sida durbaanka loo tumo ama sida sida tiibkiiyo taanta loo wado marka qofku markuu labadaa yaqaan waa u sahlan yahay wax waliba qofka intuu kaban jeclaado aan tiibkii iyo taantii iyo midnaba garanayn weligiiba kabankaa hatumo dadka is-afgaran maayaan marka waxaan ku gaadhay heer aan mahadinayo oo dee tilmaamo badan dhalinyadu igu bixiyaan ama odayaashii fanku halkan mardhow waxaad sawir ka qaadan kartaan halkaas macallinkii ugu weynaa cabdulaahi qarshi oo macallimiinteeda ka mid ahaa iyo ardaygeygii oo macallimiinta waaweyn ka mid oo isaga la fadhiya oo la yidhaahdo cumar dhuule cali marka kalgacalka aanu hayo carab baan ku koray oo ku weynaaday oo cadan weeye yaman hees qolo carabiya ma tumo maxaa sababay
موتي أنا إسكم الدين هاد بعد يرو سوماليا يصبح يوم مكان إسقي كسي لوميا ma dhegaysataa heesaa carabiga ah يا heesaa carabiga ah ma dhegaysataa وأنا دقي سنة يا لكن ولي أنت فريسين ما يسوون عسكر إسكول داي ولي وحنا دمين لاهي وأنا بد مدو يسيئة سوماليا كان يوحى وقاري دونه يمكن وحنا بارا يا وحى وياك سوماليا وتيك سنة يو أنا مكتمه وهذا مدة إن يقول برلمي إن أنت أسحوتي wadan doc kale u leexan أنا إسفري أفكار وما لحن ولا هندي ولا إنجليزي ولا عربي ولا وحبا أفكار كذا هالكات كتشوك سان كتشوكا marka ay gacantaada laga yimaado يا ها gacanta xudeydii marka laga yimaado ها aad halkaad iska dhigtay la xidho aynu qafil albaabka soo qafilo ها gacanta kale dhageysan lahayd ها waa tuma إنما بدن باكرة إن حمر بوكا وحدها دين شيخ مؤمن وحقيقي كان لما يصدباتن كي من اللي يهدو آذان تربيتوك تربيكم مقعدير باب البرد روايات خلي قدوا يسووا وضوئي كاني وكاسو أفهنا وكي رأتك لما بنيك كان نو فريسي تكذب بهالكي وشوي قاري مركزان عيدا مدى سلوت وقي وهو يهنك الكوباد نرود وانكرين هل كان تبوتي وأنيقا هدي آن مقانا هاي هدو تموكو له هو حديدي عدرنا يسوى حديدي وقعنتي إذا كوب بقري سوين ولا وريلي إن في تبوتي أو ليلة هدو عدروس عبدي waxay isla soo baxay inaan aan ka dhicin haddaanu dhaafinba oo la yidhaahdo daawud cali masxaf ya marka qaar dahsoon baa jira aniga imka inta waxsunta oo dhammi kuwaanaan maqalini telefoon bay soo diraan adeer dhegayso halkaasaan marayaaye qaar baan la yaabaa gacan macaankooda ya oo iyaguna isleh bal inuu odaygu ku fasaxo eeg aadna way u gacan macaan yihiin oo aniga xagga yaabka kanu ka yimi waa sidaasoo niyadaasaa jirto oo dhalinyaro xooga u soo kacaysa kabankii waayahay waxaa jira adigu dee waxaa tahay macallinkii macallimiinta marka dee waynaga arkayno iminka kabankiioo xadhka halkaa xadh ku leeyahay xadhkahaasi ma jiraa xadhi ka mida ama xadhi ka gaara oo marka aad dhalowdiisa maqashid ku qabanaya xadhig waliba qabasho gaaruu leeyahay cod waliba hal xadhigoo macaan buu leeyahay ya haye marka uu qofku ku yahay caan ama xariif ku yahay kabanka shantan xadhig marka nin cilmi ulihi uu tumayo heesaaga marka loo yeedho anugu balan waxaan ku qaadayaa heesaagaan u tumaa ma cod xumaan karo codkiisaba waxaa wanaajinaya tumidda maya halka isagu ku macaan ayaad la garanaysaa markaad maydhanayso sooma heestid keligaa markay soo kuma cajabiyo codkaagu nacam haa isla halkaa haddii aan ogaadaan kaaga tuma halkiin baad ka heesaysaa wuu cod macaanaanaya qofkii markuu codka uu kelida ku yahay loo helo marka af soomaaliga 5 meelood baa laga tumaa soomaaliduna 5 meelood bay ka heesaado meel lixaad ma jirto anigu haddaba aniga iyo wixii ardaydayda ahi waxaa annaga noo cilmiya heesaagu markuu yimaado ma tumee waxaan dhahdaa horta hees keliga marka uu heeso halkuu codkiisu marayay waa laga tumayaa sida awgeed waxaan leeyahay qof cod xumi maba jiro mindha anigoo kale waad ii tumi lahayd waxaa la yidhaahdaa codka afka haddaad kala qaadood istiraahdo hees showey xaasidayaani haddaan ku iman lahaa malaha waan heesi lahaa anigu balan waxaan ku qaadayaa qofku hadduu heeso isagoo goba aan ku dayanaynin telefishon iyo radio iyo waxba keligii markuu yahay heeso wuu cod macaan yahay qofku
qofka islaan noqdo مسؤول بيقول هذا وضعت حنتاي مركان قيس يو كاغ هيسو de waxaad la heesaysaa qolo kale aan kula cadahayn هي adigu keligaa markaa tahay qof waliba keligii markuu yahay oo cod macaan yahay صح anigu waxaan ka tumayaa marka qofkaasu keli yahay reeriyooyo halba oo ka xidhaya waxaan leeyahay adigoo gob ah codkaad sideeqaa ها كي لهي كسيه كويس kaama ku heesay 5 meelood buu codku leeyahay buu kaban ku leeyahay shantaasuu midun gelaya meel lixaadi ma jirto halkiin baa looga tumayaa waxa dhacday beri toddobaatanadii waa gabadh dhimatay ilaahay ha u naxariisto oo fanaanada ahayd oo xaliimo cabdulle oran jiray baa way cod macaan tahay way soo ogtahay cod macaanato markay waa beri u tagsana waxaa la yidhaha kuma tumay karo waxaa suudaan ambaasadoor ka ahaadoo ii yimi nin aanu saaxiib ahayn oo weyn oo aan iminkana hadalkiisa hayay yuusuf xaaji aadan baa ii yeedhay oo yidhi war gabadhan markaanu dhegaysanayno aad bay cod macaan tahay isaguna dadkan waxaan soo bilaabay buu ahaa macallimiintii waaweyneyd xudeediun baa meeshaa furdaamin kara buu yidhi waxaan ku yidhi reeriyoogiyo waxaa inaga xidhaanaa imanayee markaan imanu cabbaar aamusnay baanu haye nabal inoo hees halkii u abuureed bay ka qaaday halkii un baan uga tumay way oyday way xaasideen kuma xaasidayaan baan idhi halkii baan u qorayoo waxaan warqadda ula tag waa la kala boobay gabadhii markay soo baxday reer jabuutaa boobay jabuutaa laga soo celiyey waxay noqotay in la isku dilo إلا دودي بعد هالشيء ما دودي حتى شمسها سنبي أي كشرتي مد يبغى تصارتي مد كشرتي واي هاي حليمة وحنا نقطي سايم كلا تشيلو وقلت أسمع حليمة يعود أكثر الليلة ما حسوسن كرتا مركا هي سال حليمة قاعدة السيامة ما كان حسوسن كرتا والله يمكن ما ضحكوا هي ونفسي إذا من دي قلية ما دون كان كم مقنع هذا معنا يملي يكتوبي واسوك عليها هو سوك عليها مركا لأن يرى بدن ومركا حمر شوقي أنا عسكو ذهلي وحكم إذا حمر مركا كعام كل شيء وحل سمي برنامج آدو معانو فنان فرانك لسه وحل سمي ساهر قري وكان سوي قلبه وحسوب بحجري لما صد حير سرعة تضبط قلبه بريدي هرنا لما تنكر سنة من اللي هي يشتري ويسولي كذينا مركي لأنه ولو معود كان بالي حسن آدم با كمدها عبد القادر جبا كمدها يعني كوو كلو أيها كدران با كمدها وهلكا كسو بحي بريقاسان حوقو شقية لنك إذا عدانها وبرينا حقا سياسر كيهايان عدك عن صوت ديار قريو وبانو سولي بجلو مركا سال ميوزك قوي لو تو بجري دفن كاسورتا انتي أنا كعانكو دران بقول ما قارين فنانينتو لكن عانكو مركو لما ذي لبكم بمريان waxaan rabaa hadeerto maraynu sheekaysanayno halkan aynu fadhinay codad aad adigu samaysay baa jira codad aad adigu samaysay oo aad kala siisay fanaaniintii waaweyneyd codadkaasaan rabaa bal inooga sheekaysid iyaga laftarkooda codadku qaar qaraamigii bay u badan yihiin qaarna dhawaad badan maqasheen codadka anigu aan tuma ama aan leeyahay mana tirin karo imka kuma karo صدح إلا أفر صدح محمد أحمد مداتي صي فاطمة عبد الله مانديق مداتي صي waxa weeye markaan hargeysa tagay mid waxaan siiyey maxamed axmed allah ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto oo ninka koobaad anigu aan u aqaan xagga codka ninka koobaad ayuu ahaa waan u aqaanaa waayo maxamed axmed dabeecad buu lahaa mara silmicsan ma qaadi jirin oo wuxuu inaad ereyga raalliga uma qaadi karee nin aada u hufan buu ahaa codkiisuna ugu wanaagsanaa waxaana isaga soo saaray cabdulaahi qashi marka waxaan u dhiibay hawdow magacaagiyo heebsa calankaaga sidee u dhacaysi kamanka haddaynu soo qaadano hawd isaga umaan dhiibin maandeeq baan u dhiibay isaga waxaan u dhiibay dugsiyow
qaybsa calankaaga soo hanaan raaco qaybsa calankaaga niman la hadlin hooyadii qadisee niman la hadlin hooyadii qadise hantida dulama huraan weeye haka seexanin haka seexanin haka seexaninna hawsha ku maqan hawdu magacaad haybsa calankaaga mid waa kaa وكاس وفاطمة عبد الله وفاطمة عبد الله كاهن فاطمة عبد الله كاهن مانديق ويا وتشير باكري doobkii waraabshaa dulduurinaayo deeqay hashaydii doobiga u qaade deeqay hashaydii doobiga u qaade dugsiyow adigay daryeele dugsiyow dantayda jirayaay adigay daryeelo dantayda jirayaay wakaa وتشير waxdayga maqan ee wajeeray waxeradaydii ee wajeeray waa idugsanahay هاي kaasuu ahaa ها waxaan rabaa markii dee adinka yari 15 jirka ahaydee dee allahu akbar hadda saa u liiqliiqanaysay raggii aad isugu dhoweydeen fanaaniintii iyo abwaaniintiiba kuwa maad ka xusi kartaa waxaa ka mid a oo halkan beri dhoweyd ku dhintay ilaahay ha u naxariistee nin la odhan jiray cali cabdilaahi ridaale gabdhihiisu halkan joogaan cali cabdilaahi ridaale heesihii wadaniga ahaa buu qaadi jiray caafimaadkana wuu ka shaqayn jiray markaasaa radio buu ka shaqayn jiray wuxuu ka shaqayn jiray dhiidhaada markii hadalka laga joojiyo wax walba oo layidhi xafiis ka soo bixi maysid buu dhiidhaadii wuxuu ku garaacay hees wuxuu yidhi sidii reediyo habeennimo wuu qorayaa sidii reediyo habeennimo hunaa london hoonka mau furay hoonka mau qaadi baa akhriday oo garan weyda dadka u yeedhay oo tiri markaasaa sidaas weeye lama eryi karo waana kaxeeyo waxaa dawooyinka quraadahan dawooyinka iyo ka shaqeeyo dawooyinka iyo ku shushub quraadihii buu la hadlay wuxuu yidhi quraarada yahu dawada quba oo qalfoof yahu qaada dhaantada yaa ninkaasu halkan uu joogaa koox uu ka mid yahay baanana ka mid ahaa waxaa ka mid ah nin inamo u dhalay halkan joogaan oo odhan jiray xasan aadan harac markaa kooxdiina magaceedu muxuu ahaa kooxdiinaas af ingiriisi bay ahayd waaye raqayo af soomaaliya RRT baanu ahayn raqayo regiment team yani odayaashii ya haye RRT raqayo regiment team waaye waxaa ka mid ah nin macallin ahoo aada iyo aada u macaanaayoo na ururin jiray oo la odhan jiray xuseen cilmi oo iskuullada waaweyn macallin ka ahaa waxaa ka mid ahaa odayaal halkan imika ku dhintay wilson iyo waxaa ka mid ahaa cali cabdilaahi ridaalahaas waxaa ka mid ahaa biidu waa bidaar bii la odhan jiray oo bidaar la yidhaahdo bidaar baa loo casriyey loo qariyey saa biida loo bixiyey waa bii waxaa ka mid ah in cumar loo jir nin la odhan jiray intaasu haddana wada abwaan bay ahaayeen waxaa isna nagu soo dhici jiray oo marna nagu kaakici jiray annaga oo isku kaaya dari jiray barkadaas ya waxaa isaguna dushaa aanu saaxiib ka ahayn haddana nala kalaalin jiray in halkan ku dhintay oo la odhan jiray cabdi xuseen rodol marka raggaasay ahaayeen raggaa waxaanu isku ahayn qoladaa lagu addimo
الله أكبر الله أكبر عبد حسين إيو إن عبد الله ردالها مويه أنت إذا كروح عن نفته وأسوء سرطان كل عدو هاس أنا قوان سميه بأكوان كوبو ليس أنا وهسا مقعي وذين قراعي كلام مردو درد بالي لا هسا وحاو بحيين لو نتي محمد حاشي عبدي وهي السيد عبدها القيسة مركا كوح عادو عضل وانا كمان كليا وانا سدني وحي يقول لمي وكمان كليا ده كمان انت اصلا نسقط سكسينا وديرانا يا وريق ديرانيا ها markaas kabanka shirado garaac waan dhaha laga wada hadlaya la aamusay waa lagu dhiiri gelinayaa adigoon waxba tumayn baa laa ilaaha illa allah waxba kaa socda la leeyahay markaad soo socoto dhiiri gelinta waa nooca waxaan kaaga sheekeynayaa nin baadariya oo reer cadmeed ahaa oo xuseen cilmigaas ka shaqeeyo iskuulkiisa madow ahaan buu noogu heliyey nin madow oo baadariyo madowga hindiya ah uu ahaa waxaa la odhan jiray Father Dominic hargeysa waxaa casumay Father Cheese baadari la odhan jiray waxaa loo matalay xaflad baa hargeysa samaysay sheekh laga sameeyey xafladdaa waxaa matalay cumar cabse iyo rag leh iyo oo foorida tumaya nin la odhan jiray khaliif hati faarax shaambaaniye oo odayaashii siyaasadda oo dhan af carabeed bay matalayaan oo qays iyo bay matalayaan iyo xisaabo saasa ninkii la casumay isagoo cadhaysan buu yimi cadan markaasuu odayaasha u yeedhay fanaaniintiina u yeedha markaanu imi buu yidhi after 5 years sida suudaanta af ma yeelanaysaan carabi kale leedihiin ogaada waan fududayso dee haya tabaani inuu ninkaasi nin ilaahay inoo sakhre yahay wuxuu inaga igu khiyaaneeyey lacag baan ku siinayaaye sheekada aan ku siiyo af soomaali ka dhigo riwaayadda wad wuxuu doonayaa in looga dhala inuu af soomaaliga hirgalo ya markaasaan dareemay riwaayaddii uu ii sawiray waan sameeyey xafladdii lacag baan ka helay meesha igamuu kiraynin kharashkii isagaa bixinayey haddana macallimiinta u yeedh buu yidhi macallimiintii baan u yeedhnay xuseen cilmi waa naga mid ahaa waxaa dhacday in raggii loo tababarayay calanka marka Soomaaliland qaadato naadigaa bixin jiray oo naadigii wuu qayilay naadigii ma qayilay lacagtii loo dhigi jiray baa bil dabadeed go'aysa kaasaana meesha haysta oday inamadiisu halkan joogaan iminka buu u yeedhay oo la odhan jiray cabdulaahi warsame kaarshe oo ragga fanka ilaaliye ahaa wuu u warramay wuxuu yidhi 2 bilood kadib waa la eryayaa inamada halkan wax ku bartay oo dhan idinkuna waxaad doonaysaan inay hogaamiyaan Somaliland oo maxaa dhacay dee laga bixin maayo kiradii ninkii baa afka gacanta geliyey oo qaylayo cadana dee xoog baa loo joogay ilaa 100,000 baa joogtay cadan carabta annaga inta badan kaga badnayn qabaylkooda wuxuu noo baryey barasaabka uu yidhi garoonka kubadda 2 axadood siiya 2 axadood dadku lacagtay ku soo galaan ha loo dhigo ardaydaas waa magaca ninkan kuu sheegaya Father Dominic sidii baanu yeelay riwaayad baanu samaynay riwaayaddii waxaanu u bixinay inan sabool ma leh waa mahmaah Soomaaliya inan sabool alaabta male la odhan jiray anagu male baanu nidhi inan sabool male xafladii heesaha waxaa ka mid ahayd Soomaaliland la qabaa saboolnimadee sadiyare igumaad saluugsan yani aniga midkaamaad ii qaranaysaa wey lacag wanaagsan baa ka soo baxday maalintii baa lacag ilaa calanka la qaatay lacag laga bixiyo loo dhigay ya cadan Soomaalida joogtay waxay ahayd dad aad u dhiig badan oo wax walba calanku kala weynaa calankoo naga maqan baa anagu aan ku seexanayno ku toosaynay laba xisbi siyaasi baana soo galay oo qabyaalad iyo buuq wato mid waa kanaanu ku jiraa adimaadda ka xanaaqaya
waxaana loogu dhuntay wax weeye gaal baa hogaamiya laakiin isagaa saxnaa anagu markaa doqonnimo samayno inaanu isaga hadhow wasiir weyn ka dhigno mooye dagaal gala oo meel wada maslina ninkeediyo aan diinta haysan madax ka dhigta taasaa dhabarka naga jabisay kursi keliyaanu helay 3 kursi uu ahaa baarlamaanku xabad keliya oo isagii ah ay noo dheertahay aadimaadii allahu akbartiyo karbaasna looga dhigay waa sheeko xiiso leh waxa weyn baa naga raacay laakiin taayadii waa loo soo noqdo waa saa'ira imisa degela waayo ingiriisku wuxuu markii uu isagu ka sameeyey isaga maskaxdaa keenay wuxuu yidhi calan haysiin 10 sannadood oo tababar ah oo tababar dowladnimo ah isii